maxaa ka jiro in xabsiga dhexe lagu dhex sumeeyay Sacdi Bajaaj lana dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dhowrkii saacadood ee u dambeeyay baraha bulshada ayaa sheekooyin kala duwan lagu faafiyay haddaba saaxiibayaal waxaan halkan idinku la wadaagi doonaa xaaladda dhabta ah ee jirtay waliba sidoo kale xaaladda ay waqtigan ku sugan tahay muuqaalkan ayaa saaxiibayaal idinku la wadaagaya ay soo dhawaada halkan aad iga daawanaysaan waa page-kayga Maqaab Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan page-kay follow soo dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay sina share garay saaxiibadaadana la wadaag mahasani daawada ka mid noqo saaxiibada cusub ee nagu soo kordhaya si aan u gaarno 200,000 oo followers wax ka yar 14,000 ayaanu nooga harsan sidoo kale dhamaantiin waxaan idinkaga codsanayaa in aad muuqaalkan la gareysaan si meel fog u gaaro mahasanidiin hagaag aynu ku bilaawno gabadhan sawiradeeda iga dambeeya aad u jeedaan waa Sacdi Bajaaj dhowrkii maalmood u dambeeyay sheekadeed ayaa viral ay markaas naqatay social media iyadoona hadalheen badan ay dhalisay xukunkii dhawaan ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir iyadoona lagu xukumay sanad iyo 3 sano oo lagu xukumay iyadoona ay qaadan doonto sanad iyo bar balse abukaatiyaash iyadu doodayay markii la weydiiyay in loo sheegay in racfaan la qaadan karo ama la gadan karo xukunka mar haddii hal sano uu ka badan yahay lama gadan karo waxyaabo la mid ah ay markaas sheegay balse laakiin sheekadan halkaas uma socoto waxaa jirtay sheeko xalay ilaa iyo maanta soo ifbaxday oo sheegaya in Sacdi Bajaaj ay geeriyootay laguna dhex sumeeyay xabsiga dhexe Muqdisho iyadoona mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho la geeyay xaaladeeda lagu dabibay wax isbedel laga waayay ruuxdana ay ka baxday reerkeedana ay yaab iyo makaab ay afka gacanta la waayeen balse laakiin sheekooyinkaasi oo idil waa ku turkuteen ama waa been waxba kama jiraan xabsiga dhexe ayay ku jirtaa 3 sano ee lagu xukumayna ayay qaadanaysaa ama u socda inkastoo 2 bilood ay hore u xirneed haddana waxa uu sii bilaamaya xarigeedii xukunka markuu dhacay ayaan u sii bilaami doonaa sanad iyo bar ayay ku sii jiraysaa maadaama loo xisaabin doono maalin loo xisaabin doono hal maalin habeen hal maalin loo xisaabin doono saasay ku tahay 2 maalin ay ku qaadanayso xabsiga gabadhan Sacdi Bajaaj ayaa ahayd markii dhawaan maxkamadda gobolka Banaadir xukunkaasi ay ku riday iyadoona markaasi lagu eedeeyay inay waday kixin bulsho iyo waliba sidoo kale suurad xumeen iyo ihaaneysta amaartay in ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta dawladdu maartay ay suurad xumeynayso waxyaabo markaasi intaas la eg ayaa gabadha lagu soo eedeeyay maxkamadana ay cuskatay in xukunka sidaas ay u riday muddo 3 sano lagu xukumay iyadana markay maxkamadda ay hortaagneed wax badan ay sheegtay boqolaal iyada ka daranay jirto waa xaqiiq sida ay u sheegtay way jiraan boqolaal iyada maartay madaxda dalka iyo mas'uuliyiin kala maartay cigdigooda iyo sharaftooda u gafaya kuwaasi maxaa wax looga qaban waayay gabadhan hadda waxay ku xukuman tahay 3 sano balse wararka sheegayaan in xabsiga dhexe ku dhaxanuusatay ayna maartay ay geeriyooteen waa been waxyaabo yar oo iska jiri karaan balse laakiin wararka baraha bulshada lagu faafiyay bataatan ama totaleb waa mid been ah oo been abuur ah oo dadkaasi fiis waxyaabo la mid ah ay u geysteen balse Sacdi Bajaaj way nooshahay xabsiga ay wali ku jirtaa waxayna wadataa waqtigeeda xaaladeedana halkaas ayay markaas maraysaa laga yaabo xanuuno yar yar inay jiraan balse laakiin waxyaabaha sidaan loo buunbuuninayo oo ma jiraan oo gabadhu way nooshahay reeray leedahay waxa laga yaabaa reerkeedu markay arkaan hiblaayo way dhimatay waxa laga yaabaa in muxuu ahaa ay cabsi iyo waliba soo kale walwal badan ay ku abuurto xaaladii ugu dambeeyay ayaa gabadhaasi ahayd warar kala duwan ay baraha bulshada lagu faafinayeen waa mid been ah oo waxba kama jiraan daawadi haddii dalkan la soo gaartay runtii waxa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad page-kay soo follow gareysid muuqaalkan la garay sina share garay saaxiibadaada la wadaag waliba 3 jeer muuqaalkan share garay qaybta hoose faaladana aragtidaada noogu reeb daawade adigaan ma ku qanacsantahay xukunka gabadhaasi lagu riday ma mid sax buu ahaa kuwa ka daran oo iyada jiraan ma jiraan oo yani u baahan in la horgeeyo maxkamadda gobolka Banaadir qaybta hoose faalada aragtida wax walba aad qabtid aragtidaada noogu reeb daawade haddii dalkan la soo gaartay waxa qof qalbi wanaagsan waxaan dhamaantiin kaga codsanayaa inaad page-kay soo follow gareysaan si aan u gaaro 200,000 oo followers intii lagu guda jiro bilaha soo socdo inaan u dabaaldegnayaa rajeynaya oo kuma santiin daawashada muuqaalka meestradin